wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Cabbaas Araghchi ayaa sidan yiri ma jirto wax wada hadal ah oo aan ka gali doono nidaamkeena gantaalada cid kastoo ku fakaraysa in Iiraan awoodeeda hoos u dhigtana taasi waa riyo waan ka xumahay Iiraan ma awoodo riyooyinka qaar inay rumayso sidaas ayuu bayaankiisa ku sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan hadalkan waxaa looga jawaabay shuruudaha Mareykanka oo ay ku jirto in Iiraan meesha ka saarto gantaaladeeda waa kuwan shuruudaha Mareykanka uu ku xiray in Iiraan fuliso si loo joojiyo tallaabo military oo suuragal ah Mareykanku wuxuu doonayaa in Iiraan gabi ahaanba meesha ay ka saarto barnaamijkeeda nuclearka lana joojiyo kobcinta uraniumka mustaqbalka in uraniumkii hore ee la kobciyay loo wareejiyo dal saddexaad isla markaana kormeerayaasha caalamiga ay dib u ogolaadaan in Iiraan ku laabtaan Mareykanku wuxuu sidoo kale doonayaa in Iiraan meesha ka saarto barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe in la reebo oo kaliya gantaalada gaagaaban kuwaasi oo aan dhaafin 500 kilomitir Mareykanku wuxuu shuruud ka dhigay in ay joojiso taageerada ay siiso xulafadeeda gobolka inay damaanad qaado amniga maraakiibta ee marin biyoodka Hormuz isla markaana ay Xuutiyiintu ka joojiso weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta adeegsada badda Cas waxa kale oo Mareykanku dalbaday in Iiraan joojiso dhoofinta tiknoolajiyada gaar ahaan tiknoolajiyada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lana bixiyo damaanada in tiknoolajiyadaani loo gudbin Xisbullah Xuutiyiinta ama kooxaha kale ee Ciraaq ka dhisan dhanka kale gudaha Mareykanka wuxuu ka dalbanayaa Iiraan in la joojiyo xukunada dilka in la sii daayo maxaabiista siyaasadda u xiran lana xaqiijiyo xorriyadda isticmaalka internetka